Nin ayaa hooyadiis oo daa wuxuu geeyay xarun lagu xanaaneeyo dadka waayeelada, wuxuuna markii muddo la joogo ninkan mar uu u tegi jiray hooyadiis si xaaladdeeda ula soo socdo. Maalin maalmaha ka mid ayaa laga soo wacay xarunta waayeelada lagu xanaaneeyo, waxaana loo sheegay in hooyadii ay sakaraadayso, xaalad adagna ay ku jirto, lagana doonayo inuu si degdeg ugu yimaado. Ninka ayaana isagoo degdegaya durba tegay xaruntaasi si uu hooyadiis xaaladdeeda u soo arko. Waxa uu yimid xaruntii, waxauna la kulmay hooyadii isagoo ku yidhi, hooye, maxaad doonaysaa inaan kuu sameeyo ka hor intaadan geeriyoonin? Waxay ku tiri hooyadii, waxaan doonayaa inaad xaruntan marwaxaado ku xirto. Waxaan sidoo kale doonayaa wiilkaygiiow inaad xaruntan keento talaajado ay ku jiraan cabitaano wanaagsan iyo cunto badan, si habeenkii loo isticmaalo intaan la seexan ka hor. Ninkii oo yaaban baa hooyadii ku yidhi, hooyo, maxaad iminka iiga dalbanaysaa oo waagii hore aad iigu sheegi weysay intaad xaruntan aad ku sugnayd si aan sidaa kuugu sameeyo? Hooyadii ayaa iyadoo ilmeynaysa waxay ku jawaabtay, aadna u murugaysan, anigu gaajada iyo kuleelkaba waan la qabsaday, laakiin wiilkaygiiyo waxaan ka baqayaa inaad adigu la qabsan weydo marka aad gabowdo, ubadkaaguna halkan maanta aad i keentay adigu ku keenaan. Qisadan ayaana qiso cajiib ka tarjumaysa in waalidka loo axsaan falo. Haddii waalidkaadan u axsaan falin, ogsoonow in waddadaas oo kale ay ku sugayaan, ubadkaadana halkii aad waalidkaa dhigtay ay ku dhigi doonaan. Haddiise aad baari u noqoto waalidkaa ood wanaajiso mar waliba, ogsoonow iyadana in Ilaahay ubadkaaga baari kaaga dhigayo, si wanaagsanna noloshaada ay kuu daryeeli doonaan. Qof walbo muslima waxaa laga doonayaa inuu waalidkiis u noqdo qof baariya, sidoo kale markii waayeeladaan ka raadsado ajir badan, si wanaagsan u xanaaneeyo. Waxaana fariintan amba qisadan kooban idinla socodsiinaya wariyaha arrimaha bulshada. Si qisooyin iyo sheekooyin kale aad u xiiso badan aad u haysaan, fadlan subscribe saar channelkan YouTube-ka ku leeyahay ee gacal.